بسم الله الرحمن الرحيم ومالين سبتي إلهي سبتي خير كذا هاي نسي سبتي هالكلا وبدنا عافي ماضي بشي برواقه هاي نسي آمين آمين maraykankii ingiriiskii yurubiyankii waxa kuwa wax falanqeeya dadka wax falanqeeya kala dhigdhiga siyaasadda ha noqoto culuumta ha noqoto cilmiga kala ha noqoto ayaan iminka dhowr iyo 10 sanaba ku lahaa waa jaamacaday dhigaan qaarkood waa 40 sano qaarkood dhigaan qaarkood 50 sano wax dhigayeen ayaa waxaan ku lahaa war sidaa u fahanteen muslimka maaha weliba wadamada sunnaha maydaan fahmin waxaana sheegaysaa waa been waa mala awaal laakiin dadka sunnihii waxay idin haystaan cilmi sheegaysaan oo adu qaar waa kula marmayaan qaar waxay ku oranayaan muxuu ahay saamaxad ku tiri markaad u sheegto xaqiiqada way ka tagayaan waayo dadka badankiisa adduunka jooga ilaahay abuurtay ee wax kasta siiyay ayay ka jeesteen macdana waa adigoo miskiina oo iyagoo kala maxay wax ka maqlayaan waxaan uga jeedaa taas waxaan daawaday wariyaal baan daawaday wariyaasha ugu caansan dadka ingiriiska ku hadla kuwa Finnish ku hadla kuwa Hollandiis ku hadla waan daawaday ama Mareykan ha noqdaan ama Australian ha noqdaan waan daawaday waxaan ogaaday inaanay wax khabar bahaynin kuwa jaamacadaha dhiga khabiirka ku takhasusay wax qaar waan daawaday waxaan ogaaday inaanay khabar maafish ay waxay ka hadlayaan aanay khiyaali ay tahay laakiin dadka waxaan ogaaday inay khiyaaliga ay jecel yihiin marka tiyaatarka wax ka matalayso yani qofka lacagta ku bixinaya inuu ku daawado aad matalaha tahay wuu ogayeen waxaan matalaha tahay laakiin marka jaamacad tagiisa ama aad war dhageysanayso ma oga qofku wuxuu u haystaa in uu xaq loo sheegay waxaas dhan waxaan u sheegay sunnaha maynaan fahmin dadka sunnaha sheegtay sunnuhu waa xaq inta dadka sunnaha raacda waa yartahay dadka sunnaha maanta waxa lagu arkaya waa Yemen iyo Falastiin gaar ahaan Gaza way yar yihiin dadka sunnaha wadaadka sunnaha sidii ilaahay inoogu talagalay sunnaha loo raaco wadadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam telefishinka ma arkaysid khadkana kama arkaysid ma jirto wuxuu yaqaana waxa xaqa wuxuu yaqaana waxa saa inanta sunnaha waa sidoo kale waxay way samaysanaysaa oo lama yaqaan dadka badankiisu ma yaqaan jirka jaarkooda mooyee dadka sunnaha waxaan eegay kunkii sano ugu dambeeyay 500 iskabadha kunkii sano ugu dambeeyay sida imika yihiin bay haayeen khayaalow baa dadka haysta khayaalowgaana wadaadada markaa jooga way la shaqaystaan tusaalo kale inaga dawladdiisiyaad barre wadaadadu way la shaqaysanayeen ilaa maalintu burburay wadaadada waaweyn kuwa ku kacay waa dhalinyaro ugu yar 60 jir muu gaadhayn wadaadadii lagu laayay xamar 1947 ilaahay wan xariiste ugu yar waxa la yiri 17 jir buu ahaa ugu weyn wuxuu ahaa 9 jir 30 jir baa soo wadaadada kale way la shaqaysan jireen Cabdirashiid Cali Suufi aabihi siyaad barood wiigi hore suurta nisaa yiri suurada rag iyo dumarka qaybinta dhaxalka ha laga saaro quraanka inama anfacaysa tan Soomaaliland lawii ka bacdi uu la joogay isaga qaar kale waxaan kaaga sheegay wadaadada way la shaqaysay imika saasoo kale 2022kii markii uu coldoon xiray Muusabixi saddex shaka bacdi misawi ka bacdi Sheekh Mustafa iyo Cabdirashiid Cali Suufi iyo wadaadada kale way u tageen way soo sawireen oo mahadsantahay ku yiraahdeen wadaadada waxaan ku sheegay badankoodu xaq kama hadlaan runta markay noqoto way ka warwareegaan sheekhada iminka aan ugu jeclay waxa weeye Sheekh Umal waa ogaadeen baa la yiri waa sheekh aan aamini karo weeye sheekhyada sunnaha ugu waaweyn waa Dr. Saynaig waxaan daawanayay 19 sano ugu dambeeyay ma 19 sano ugu dambeeyay ismuu bedeleen wadadiisu waa toos markii la weydiiyay shiicada iyo sunnaha wuxuu yiri war nabi maxamed shiicana muu ogeyn sunnana muu ogeyn midna adigu dadka kala jibinine caab wadadii ilaahay raac taasana anigu aaminsanahay waxaan kala dadka fidna la saddex dhigay dadku waa isku wada mid marka dadka sunnaha sheegtay sida munaafiqiintaas ay ahaayeen isma qabtaan xitaa imika tusaalo kale ku tusaya bal inaan waxaan sheegayaa runtahay iyo wax si kale Soomaaliland ka soo qaad Soomaaliland kuwa golaha ku jira waxa badino 200 baa golaha ugu jira xildhibaana
dadka Somaliland degan waa imisa waa 4 milyan kaba soo qaad 4 milyan baa degan 5 milyan yareeba 4 milyan ka soo qaad 4 milyan iyo 200 iyo ma badan haddii ay dadku fiican yihiin wadaadadoodii ma imisa wadaad baa jooga Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Laascaanood iyo Ceergaabo iyo Boorame imisa wadaad baa jooga haddii wadaadadu fiican yihiin maxay dadka 200 dadka xun dadka ugu sheegi waayeen ma jirto Oldon waa ninka kaliya ee mabda' leh waa ninka kaliya dadka doonaya inuu wax u qabto dadka doonaya inuu xoreeyo maskaxda ka xoreeyo laakiin dadka badanka iminka jooga ma fahmayaan konton sano 100 sano ka bacdi ayaa la xasuusan doonaa xamar 500 oo muxuu ahaay xildhibaanaa jooga madaxweynuhu ku jira xitaa imisa degan 20 milyan baa degan koonfurta Soomaaliya markaas jirto xamar imisa degan ugu yaraan milyan dhow baa degan banaadir iyo agagaarkeeda 2 milyan 3 milyan way gaarayaan maxay isaga qaban waayeen waayo iyagii baa xun dadkii baa xun dadka xun war sideebay kugu maamulayaan dad xun intaasoo sanadood siyaad bar imisi wadanka haystay 21 sano ayuu xaaraan ku haystay diinta dadka ka saaray kaxaynay dadka dilay dhacayay gawaarida ka qaaday guryaha ka qaaday 21 sano ayay saa ula shaqaysanayeen ilaa inama yaryar iyo habla yaryar ay u yimaadeen mooye waxaan kugu sheegay dadka sunniyada inay weligood haddaan ku gooyo carabta 1000 sano haddaan gooyo waa saas oo kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaan raacnaa samaha waa qofka weydii ku fiican ilaahay lagu daydaa buu yiri waan aaminsanay anigu 100% waayo ilaahay wuxuu igu yiri waan aaminsanay nabi maxamed waxbana muu doonay inaga iibiyo filina doonay inaga iibiyo buugna muu doonay inaga iibiyo yani nololna inaga iibiyo anigu doonay inaan anigu cadaabta iska badbaadiyo anigu danteeda ka hadlay nabi maxamed wax kastuu sheegay waan aaminsanay 100% inanku awoogo haya dilay kuwa Sacuudiga haysta Qatar haysta muxuu ahaayay Kuwait haysta Jordan haysta Bahrain haysta Oman haysta kuwaasaa dilay xaq daraa lagu dilay waa inankii awooga uu nabi maxamed u ahaa sallallahu alayhi wasallam maxaa lagu dilay war xaq daraa dadka joojiya waa lagu dilay taa Oldon imika lagu haysto Abdimaalik Oldon lagu haysto saasoo kale ayaa loo haystay war xaq ku soo war diinta ka leexanina ayaa loo dilay Karbala lagu dilay iskuulada lagu ma dhigo waayo aragta qof sunna ha lagu sheego maxaa lagu dilay lagu sheego laguma sheegayo waayo way qaldan tahay xaqdare ku marka qof sunna ah ilaahay ka baqanayo dawladna Turkigana Turkigu waa munaafiq ugu weyn adduunka warniya wuxuu idin ka dhaadhiciyay waxyaalo badan wadiga arkay dadkii diiday taariikhda marka la jirka ahaa 20 sano ka hor marka la war isku haleynaa wadamadan sunnaha ku haysta siyaasadda aan bilaabay ardayga 20 sano ka hor hada waxay igu lahayn ma Turkigu fiican yahay ma kuwan Sacuudi way war isku halay war Qatar baa ka yar fiican ma isku haleyn wiigi hore waa ka dadka sida madaxweynaha Mareykanka ay kumaaday dadka waxa la badbaadinay ma taqaan Masar lagu shiray yaa la badbaadinay Yuhuud la badbaadinay Yuhuud ayaa la badbaadinay gabigooda way saayaan u soo yaaceen inay Yuhuud badbaadiyeen qasab maalintii la gumaaday ma jirto 2 sano u dhamaatay qasab maalintii ay ogaadeen inaanay dagaal waxba ka qaadahayn Mareykanka waa Masar waa Urdun xitaa imika New York Times waa waraqda labaad ama koowaad ee Mareykanka waxay soo daysay 2 sano ugu dambeeyay Masar Bahrain Urdun iyo kuwa khaliijka oo dhan iyo Yuhuud ciidamadooda inay shirayeen laga shirayay godadka yani godadkan ay samaysteen qasada iyo Iran loo shirayay ka sheekay arka dadkii waxay dadku anigu siyaasiga waxa kama sheego dadkii waxay oranayaan dadkii Sacuudiga ahaa marka dadkii way dhinteen Qatar way dhinteen Soomaaliya way dhinteen Somaliland dadkii way dhinteen Turkiga dadkii way dhinteen halka kaliya waxa weeye labada qof afarta qof wax garanaya oo ka ah taas xala inta kale sunnaha aakhirana waa cadaab adduunkana saasay u noqonayaan munaafiqiinta loogu shaqaysanaya loo bahdilay sida Mareykanka u bahdilay waad arkay sidoo ugu tuuray maca Yurubiyaanka u bahdilay